maanta oo kale 5 sano ka hor 24 July 2019 ayaa qarax xooggan waxa uu ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Haddaba 5 sano ka hor duqa caasimadda magaalada Muqdisho Allah naxariistay gudoomiyihii hore Engineer Cusmaan Yariisow iyo sidoo kale gudoomiyaal kale oo markaasi halkaas ku lahaa shir xasaasi ah oo laga hadlayay amniga gobolka Banaadir ayaa inta badan waxay u geeriyoodeen qarax ka dhacay halkaas. Haddaba dadka Soomaaliyeed maanta oo ay tahay maalin Arbaca ay tahay taariikhdana 24 July waxa laga joogaa 5 sano ka hor. Haddaba qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir cid loo soo qabtay iyo cid aan loo soo qabanba inta badan dadku waxay isweydiinayaan maanta oo ay ka soo wareegtay 5 sano ka hor halkee uu ku dambeeyay dadkii ka dambeeyay qaraxii uu ku dhintay gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Cusmaan Yariisow. Haddaba daawade warbixintaas oo dhameystiran ayaa rabaa inaan kula wadaago ee marka hore muuqaalkan like saarsiina share garee dhinaca commentigan ugu duceeyo inta badan dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 5 sano ka hor. waa hagaag maanta oo ay taariikhda tahay 24 July 2024 dib aan ugu laabano wax yar ama 5 sano ka hor isla July maalinkii ahayd 24 July 2019 isla maalin Arbaca maantana waa maalin Arbaca 5 sano ay ahayd waxa ka soo wareegatay geerida Engineer Yariisow duqii hore ee caasimadda ee Muqdisho. Haddaba maalin Arbaca oo taariikhdana ay tahay 24 July 2019 dhammaan gudoomiyaasha gobolka Banaadir waxa ay joogeen oo xaadir ay ku hayeen isla xarunta gobolka Banaadir. Haddaba duqa caasimadda ee Muqdisho Engineer Yariisow goobjoog ayuu ahaa waxa dhammaan ay ku soo xaadireen xarunta gobolka Banaadir oo inta badan uu ka socday shir xasaasi ah ama loo balansanaa shirkii khamiislaha ee inta badan ka dhici jiray xarunta gobolka Banaadir. Haddaba hoolka ayaa dhammaan waxay ku wada hayeen xaadir gudoomiyaasha gobolka Banaadir iyo sidoo kale duqa caasimadda Muqdisho Engineer Yariisow. hal mar ayuu jawiga isbedelay oo waxa inta badan laga maqlay gobolka Banaadir jug xoog leh. Haddaba halkaas waxa ka dhacay qarax xoog leh oo inta badan ay ku geeriyoodeen gudoomiyaasha gobolka Banaadir iyo sidoo kale isla duqii caasimadda ee Muqdisho. waxa ku jiro gudoomiyaasha geeriyooday Allah naxariistay gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Marwa Saba, Abdullaahi Asad gudoomiyaha degmada Waabari, Mahad Cilmi gudoomiyaha degmada Shangaani, Sahro Markazi la taliyaha dhanka sharciga ee duqa Muqdisho, Abukaat Maxamed Sabriye agaasimaha qorsheynta, Engineer Shuuriye agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha, Abdullaahi Cali Dheere agaasimaha nadaafadda gobolka Banaadir, Cabdifataax Cumar Xalane iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. sidoo kale waxa uu qaraxa dhaawac baan uu ka soo gaariyay duqa caasimadda Engineer Yariisow oo halkaasi looga qaban waayay isbitaalada magaalada Muqdisho ku yaalo xaaladda caafimaad waxba loo qaban waayay ayna sababtay in loo qaado wadanka dibadiisa gaar ahaan wadanka Dooxa. waxa uu geeriyooday gudoomiyaha 1 Agoosto isla sanadkii 2019. haddaba qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxa 5 sano ka hor talada dalka hay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya. haddaba inta badan laamaha amniga ama qubarada amniga waxa ay dhahaan qaraxaas waxa uu ahaa qarax lagu diyaariyay hoolka. sidoo kale dadka Soomaaliyeed inta badan waxa ay ku doodayaan in uu ahaa qaraxaasi qarax gabar ay isku soo xirtay oo inta badan halkaasina ay soo gashay oo halkaas ay isku miidaamisay. dhinaca kale qubarada waxa ay sheegayaan halka uu fadhiisanay gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Yariisow in lagu xiray. isku soo wadaduube dhammaan waxa ay noqoto laamaha amniga ama sidoo kale dawladda xilligaasi xukuntay talada dalka haysay ilaa hadda lama horkeenin laamaha amniga ama laamaha garsoorka cid allaala cidii ka dambeysay. haddaba daawade 5 sano ka hor ay ahayd maanta inaan idin xasuusiyo maadaama dadka inta badan ay iloobeen geeridii Allah naxariistay ee duqa hore caasimadda Engineer Yariisow. haddaba daawade qaybta commentiga ugu duceey dhammaan dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir.